السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي هدي أد نقع سبتاي channelka like share subscribe وحقاقة هدي أد هرنا لجوكتنا عاد بانكو سلام يا وعاد ما تسنتين أصحابي ما أنت وحان ربا إنا كهدلو قصو أن ليابي مركان أقريني أو أفكئي دابنك إينا فورك أنساه إسو ساري قصص مركان أقريني ما أنت ويابي waxaan la yaabay yani adduunkan ayna saarnay waxyaalo kaa yaabiya baa maalin kasta ka dhaca kaa yaabi ood mutafajac la noqoto oo isaa ku dhici kartaa hadaa idiin sheegay idinka laftigiina waad yaabaysaanba asxaabey waxaa jirtay nin iyo naag baa isqabay waa qisadan waxay ka dhacday waddanka Albania ninkaan naagtan way isqabeen dad oo isku fiican ahaayeen xiriir bay lahaayeen waxay isku afgartay inay isguursadaan wiil bay dhaleen ninku waa military waddankaas ka tirsan yahay ninku waa military wiil bay dhaleen wiilku waa 2 jir bas ninkaan marka waxaa shaqo loogu qaadaa meelaha xuduudaha ah baa la geeyaa ninkaan oo 2 bilood 6 bilood 5 bilood buu maqnaadaa xuduudaas maxay ahayd oo joogaa waa soo noqdaa wuu tagaa taas shaqadiis waa noocaas gabadhan waa baagamuun wax shaqaa ma qabato guriga waa guri joogto cunugeeda haysta cunugeeda waa 2 jir asxaabi cunugan wuxuu leeyahayba mucjiso arrinta mucjisada waxay tahayba wuu isbedbedelaa cunugan subxaan allah wuu isbedelayaaba cunugan mar waa hadlayaa mar ma hadlayo mar waa oynayaa mar isaga dhanba indhihiisa waxay noqonayaan guduud indhihiisa danger ay isaga dhanba waxay noqonayaan guduud mar indhihiisa waxay noqonayaan buluug gabadhu way yaabtay way fiirsay ilmihii yaraa ilmahan maxaa ka khaldan ma indhahaaga ah bismillah dadkaa u sheegin bal waxaan yaa lagula yaab naagta ma waalataa lagu leeyahay naagta arrintaas waxay qarsanaysay muddo 6 bilood ah bay qarsanaysay wiilka habeenka indhiisu waa guduud galinka dambe wixii door ka dambeeyo waa buluug caadi waagu markuu baryo waa indha cadcad oo normaal ah subxaan allah asxaabay qisada markaan anu akhrinayo waaban yaabay see ku dhici kartaa waxaan see ku dhacdaa adduunyada adduunkan wax walba ka filo gabadhii arrintii aad bay ula murugootay way xisaabtantay yaa u sheegtaa yaa la qaybsataa yaa arrintan aad bal si yaa kaaga sheega dhakhtarka ma u sheegtaa maya ama cunuga kaa qalaa ama operation lagaaga dira waa taqaanaa hooyo beer wax dhalay ama maxay ahayd yiraahdaa wiilka indhaha laga qalay gabadhi wixii waa kaligeeda ku noqota hawshi xitaa ninkeedii oo qabiil lama aysan wadaagin hawshaan bas arrinta markay halkaa marayso oo arrintaanu bisha ka dambaysa ay sii badanayso hawsha waa ilmihii yaraa wuxuu bilaabay habeenkii inuu baxaba guriga cid ka furaysa ilda ma jirto islaantaan markay soo xarooto gurigeeda soo gasho way xirxirataa furay ku rogtaa loo kale gashataa waxbay ku samaysaa ilmo yar ma bixi karo fak banaanka waa tegayaaba waa baxaa wiilki waa soo noqdaa adugu wixii ilada ka fura iyo wixii soo geliya kaala sheeg معجزة الرباني اللهم نجينا الدنيا wax walba waa lagu arkayaa ilmaha yar guriga cid ka furta ma lahan waa baxaa banaanku taga waa soo laabtaa ma oga gabadhaan warba kama haysaba habeenada ka mid ah baa waxaa dhacday gabadhi baa hurdadii ka tagtay ilaahay amarkiis wixii lagu tusirab waa gooni hurdadii baa ka tagtay hurdada markay ka tagtay gurigeeda marka wuxuu lahaa meel daaqad oo ku aadan banaanka jidka oo maxay wax marmaraya la arko gabadhii way soo baxday daaqaday saa u furtay
mise ilmihii yaraa meesha marayaba ayada dhashayba ilmihii yaraa baa meesha maraya qaracan gabadhi istaaga inay ka dhacdo daaqad wax yar baa uga dhinaa afkay furtay hebel steve aan dhihi jiray steve khaylo wax soo jiisanaya iyo wax maqlay toona mar waa ilmo yar 2 jir ah bas gabadhi markay saa u soo laabatay oy daaqada xirtay oy ka soo baxdo qolkeedii maxay ahayd qolkii isleedahay baxo wiilka orada soo qabsay ilmaha yarka ah qolka fadhigu fadhiyaa cunugi qolku fadhiyaaba kii ay wadada ka arkaysay baaba qolka fadhiya kursiga saa u fadhiya isagoo indha gaduudan subxaanallah waa la joogay naagta way yaabtay waxay istiri ma waalan tahay ma fiyoobid maxaa kaa qaldan ma maskaxdii baa si kaa noqotay way yaabtay gabadhi cunugay daf soo tiriyo isagoo indha gaduudanoo soo xambaartayo qolkiisay keentayo waa seexisay gabadhi hurdaa kasoo diiday hurdo kaalab seexo waxay iska dhaadhicisay in madaxa xoogaasi ka noqday teleefon ay dirta subaxdii dambe ninkii qabay bay teleefon u dirta waxay tiri walaalow sida ugu dhaqsaha badan igu kaale aniga ma fiicniye maxaa dhacay maya tiri sida ugu dhaqsaha badan fasax soo qaado iyo imow fasax soo qaado sida ugu dhaqsaha badan ii kaale anigu xaalkeyga waa ma aragtay ma garanayo saan ahay ninka wuu naxay si degdeg ah isla maalinta dambe waa yimid maxaa kugu dhac walaale iyo waran see lagu qabtay maxaa jira waxay tiri hana ila yaabin arrin baan kuu sheegayaa maxay tahay arrintu cunugan aan dhalnay oo yarka ah wuu isbedbedelaa muxuu iska bedbedelaa cunugan marba kalar buu indhihiisu marba nooc bay noqonayaan oo sometime waxaa arkaya ilmihiyo bannaanka taagan gurigan taagan misay ku dhacday ninka xitaa wuu shakiye wuxuu yiri bal isdeji walaalay hawshaan bal anigaa bal intaan joogo xuuraansanayee bal isdeji oo hawshaan hawl sahlan ma aane bal seexo waaga hanoo beryaan bal ka tashanaynaay waayahay tiri bal arrintaas intaad si ka tiraahdo ha iga tegi walaalo hayaba waa la joogay way seexdeen habeenkiisiyo maxay inta gabal ku dhacay maalinkii dambe maalin cadday marka ay ahayd jaa ilaa cunugan indhuhu 2 kalaray noqonayeen galabtii waa guduud habeenkii waa buluug marba nooc isu bedelayaan markan waxaa ku soo kordhay cagaar wiilkii indha cagaaran waaba kana odagii ninkii afku furtay halay caawiyo heblo u qaydiye halay caawiyo waxaan ilmo ma ahan ma aqaan waxaan guriga ku haysto waaba yaabanahay ma joogi kara xaafadda ninkii yaab argagax ku dhacayba gabadhi way soo oroday maxaa kugu dhacay isdeji elayn ciddaan waxa guriga u jooga ilmo maba ahanba akhyaarey waxa guriga ay ku haystaan ee ilmo u malayaan ilmahoodii maba ahanba waxaa raba qof qolaa ku ciyaarta jaa ilmahoodii waa la afduubtay ma garateen ilmahoodii waaba la afduubtayba waxa guriga u jooga waa wax la brogaraamiyey oo ilmo loo ekaysiiyey maba aha ilmo caadi ah miyay fahmaysaan asxaabay qisada maanta qaybteeda 2 kala soco janaalkayga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu